السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا قال جنال كادت كعسبتا كسو دو سبسكرايب نو صار هرادا دو جوكتاي لايك نو دي كومنتي maanta iyo fiideo cusub waxa igu dhacday qiso aad iyo aad aan ula yaabo ilaa haddana aan qiri waayo inay igu dhacday maxaa yeelay qisadan waxay ku saabsan tahay mid aad u xanuun badan waxayna igu dhacday habeen anigoo istaagan laamiga dhinaciisa waxaan sugayay taxi aan raaco waxaana dhinacayga taagneed gabar ku hadlaysa telefoon aniga kadib waxaan fiiriyay saacadii waqtigana waa uu sii socday kadib waxaan u soo dhaqaaqay dhanka iyo xagga kale meesha ay dadku taagan yihiin ay ku sugayaan taksiga meeshan waxaa taagnaa 3 wiil iyo hal gabar waxaa soo maray tagsigii waan istaajiyay kadib waxaan ku dhahay walaal hore ii qaad waxaana ila soo fuuleen taksiga 2 wiil oo rabeen inay fuuraan kursiga iga horeeya anigana waxaan fuulay kan dambe kadib tagsigii waa uu dhaqaaqay waana soconay sidaan u soconay ayaa wiil tagsiga aabiis dhinaciisa la fadhiyay ayaa wuxuu dhahay hoo biyahan caba kadib waan isku dhidhibnay aniga ugu dambeeyay haafku dambeeyay ayaa leeysoo dhiibay kadibna waan qabsaday oo waa cabe isla markiiba wax kale ayaan dareemay haddana madaxayga aad ayuu ii wareeray indhahan waan isku qabanayay waana suuxay wiilashii iga horeeyeen waa ay dhaceen mar hore ayay suuxeen balse aniga indhahayga ma aysan isku qabsanin haddana waxaan isdhahayay dadka maxay sameyn rabaan oo maxaa kaniini ma lagu daray biyaha ayaan isdhahay waxaan maleynay meel ku qoran currency chicken faram waan dareensanaa inaan meeshas mareeno maxaa yeelay aniga suuxitaankayga weli waxbaan ka dhibnaa waxaana la soo geliyay qol aad iyo aad u mugdi ah labadii wiil ila socdeen waa ay suuxsanaayeen wayna jiifeen suuxdin ayaa ku jirtay balse waxaan rabay inaan kiciyo haddana dad suuxsanayo ekaayeen wayna dhaqaaqi waayeen wiilka kale ayaan rabay inaan qaado laakiin waa qaadi waayo aad ayuu u culusaa kadibna waan iska dhigay waan soo baxay waxaan imaaday albaabkii waxaan fiiriyay albaabka ayaa ishi saaray waxaan arkay 3 nin oo nawaardiyeynaya taagan guri xagga ku yaala aniga waa baqay isla markiiba geesaha ayaan fiiriyay waayo meel aan ka baxa ayaan rabay waxaan arkay qolka geeskiisa meel daaqad ah oo furan haddana ku xiran maro yariisa meeshii juqjuq ay ahayd waana ka soo cararay aniga waan soo baxay labadii wiilna meeshii ayaan ugu soo tagay maxaa yeelay aniga nafsadeyda ayaan u baqay anigoo dhacdhacaya oo gurigaygii xaafadiisa aan soo gaaray ayaa waxay aragtay xaaskayga kadib way soo carartay hab ayay siisay wayna qaaday waxay keentay qolkayga indhaha markaan soo kal furayna waxaan arkay iyadii maxaa igu dhacay ayaan dhahay aniga kadib ayaan soo xasuusay booliskii ayaa ii imaaday gurigayga waardiyeynaya waxaan u sheegay inay dhibkaas qabsatay oo dhibkaas uu igu dhacay oona lay afduubtay 2 wiilna oo la haysto kadib TV-ga ayaan waxaan ka maqlay arrin naxdin ah gaariga aan raacay inay ahaayeen dad tuuga oo dadka inay dhacaan ama dadka wax inay ka qaataan ay dilaan jecel ayay ahaayeen maalintaas waan ka badbaaday aniga alxamdulillah markaan gurigayga imaaday dib dambana gaari taxi ama aanan u raacin cabsida aan ka qaaday